maanta waa ka warqabtiin maxaan ku dhahay hadalkii uu ku hadlay Fahad Yaasiin oo baraha bulshada socda waana wax laga qajaafo oo maxaan ku dhahay nin weyn wuxuu ku hadla aanan ahayn waxa waaye Fahad Yaasiin maalintii gabadhu ay maqan tahay 18 beri baan xafiiskiisa ugu tagay wuxuu yiri gabadhii waxay ku maqan tahay dhinaca shabaab ay ku maqan tahay saasaan xogta ku helnay marka 2 beri iga warsugo maamo waxa ila socotay aqayaar nabadoono ila socday aniga kaligay ma ahayn marqaati ay leedahay 18 beri ay Ikraan Tahliil ay maqneed maalinta ayada ah oo xafiiskiisa ugu tagayno marka maanta inuu geedaha uu madaxa ku soo qabsado ma aha falaarida Soomaali waxay ku maamaaday falaaru kaaga ma harto gilgilasho falaar gilgilasho kaaga ma harto Ikraan waxay maqan tahay jun to jun waa wajeer waay marka intaasay maqan tahay intaas dhibaatadii taalay iyo iska daba socodkii iyo oohintaydii iyo dhibaatadeydii wuu u jeeday qof islaam ahay oo quraana lay baray uu leeyahay hadduu yahay muxuu uga damqa waayay muxuu u hadli waayay meeshaas hadda nabad sugiddu madax ka ahaa nisoo madax ka ahaa telefoon waa naga qabo waayay 2 beri ka bacdigii waana soo wici waayay waana la hadli waayay intaas aniga baraha bulshada ka qaylinayo marqaati ka tihiin ummadda Soomaaliyeed ad marqaati ka tihiin maanta inuu yiraahdo maxaan ku dhahay mahad salaad iyo ra'iisul wasaaraha iyo al-Adaala iyo wiilka kaleeto maxaan ku dhahay karatay oogsan iyo saan ay tahay hal sanay maqneed gabadhan hadda bariya ka dhiman 27 June ay sanadkeeda buuxsamaysaa oo habeenka 27 ka ahayd wixii la qaaday oo bishaan bisheedii ah marka maanta inuu saas yiraaho waa ku qaldan yahay waana falaari gilgilisho kaaga ma harta waa wax ku ceeba saasne wax oo bilaadanimada ka baxsan oo hadlay oo qalada oo dad ijaafaysanaya maanta markii mahad salaad loo dhiibay meeshii asaga laga qaaday muusaas leeyahay ra'iisul wasaaraha waa ninkii xilka ka qaaday oo maxaan ku dhahay xeradii uu deganay ka rujiyay oo ka qaaday oo maanta maxaan ku dhahay dhibaatadii uu sameeyay adligeeda wax walba looga soo xirxiray maanta marka maciil u qabaa oo ciilku u qabay muu u leeyahay maanta ayaga dileen Soomaaliyay waa kaasa ninkaas weyn oo intaas dhan wuxuu waxaas ugu hadlay bal arkab Soomaaliyay waa waxaan soconaynin waa wax ka jira aan lahayn maanta marqaati leedahay maalinkuu lahay gabadhii al-shabaab dilay waxa lagu dilay maxaan ku dhahay dhaytuba ka lagu dilay iyo meelahaas haye Yaasiin Faray ku soo hiray Yaasiin Faray waa ninkii shalay asaga ka horeeyo waxay ku soo ballameen waay kolba oo waa u jeedin ummadda Soomaaliyeed wuxuu yiri Yaasiin Faray wuxuu yiri gabadhii waxa anaka ma arkin laakiin al-shabaab dilay ma arkin laakiin shabaab dilay shabaab markuu dilay soo ku ark soo ugu jeeday haye mana arkin uu leeyahay meel uu qaaday ma ogi mid walba wuxuu ku soo lug duubanaya waalidkaan naqaan aqoonis maxay naga yaqaaneen anaka maxay aqoonis noogu tareen anaka maxay noogu qabteen anaka ummadda Soomaaliyeed waa u jeedaa dhibka uu Fahad Yaasiin uu wado uu ka gilgilanayo laakiin gilgilisho falaari gilgilisho kaaga ma hartay Soomaali ku maamaaday waa ninkii shalay yiri shabaab ay jirtaa odayaashii aqayaartii iyo nabadoonadii waa joogaan ma dhiman waa nool yihiin naftu waa ku jirtaa oo yiri maxaan ku dhahay 2 beri iga warsuga 2 maalmood halay siiyo waqti halay siiyo ilaa hadda muuna soo hadlin ilaa hadda uu hadalkaas oo shubankii asaga sheegay uu hadda shubmay maahane wax kale oo meeshan uu soo hadlay ma jirto muxuu wax uga qaban waay Djibouti leegu celi warka qofka markuu sheegi rabo hadii dib dhaco waa inuu qof kale u soo aqriyo warqad uu soo diro ama uu hadal meeshii uu joogo uu ka soo jeediyo oo meeshii uu noqday uu ka soo jeediyo war waxaan ku iri waxaan wax soconaay maahane niyo wax muuqdo ummadda Soomaaliyeed qanci kara la imo Fahad Yaasiinow gabadhaydii si ay kaaga maqan tahay adiga ma jirto wajigaadayna ku qoran tahay waxba hays madluumin oo hoos u jeesan Ikraan Tahliil
banki qiyaamo xataa waa kula tegaysaa banki qiyaame nimankan muslimiin akhyaarta ha ku soo lug duubanin ra'iisul wasaaraha haddaad wax ku hubtid sanadaa laga jooga arrinta ayada ah sanad wixii ka dhiman waa beryo sanadaa laga jooga maxaad u dhihi weysay saan iyo saan iyo saan iyo saan maxaa u dhihi weysay war wax ma kuu sheegaa waa kaa halawda tani waa kaa halawday ummadda Soomaaliyeed waxaa ka gadi kartid la imowniyo oo u sheegi kartid dadku aqliyo qaba culumaa joogto akhyaara joogto haween wax garadaha joogo warittaqullahu rabbi quraana bartaa leedahay maxaan ku dhahay marmarsiyo wax ku soconaayo ma aha iyo dad ina ku soo lug duubatid ma salaad waxaad uga xuntahay meeshii adiga laga qaadaa la geey waa intaas ra'iisul wasaarahana nin qumaro sharaf loo meel joogo doorashadaad ogeed sida ogeed u soo daadiyay waay warniyo ilaahay ka cabso wax ku soconaayo la imow meesha war haddaad gabadhii haysid isii gabadhii kuma haysto wax aan ku haysto male ummadda Soomaaliyeed ay maqal ilaahay yaa iga sareeyo subhanahu wa ta'ala wallahi billahi tallahi wa ismada ilaahay inaan ku haysanina ilaahay ugu ogeeyay rabbi ummadda Soomaaliyeed ay marqaati ka ahaada iska keen gabadhii ma weysay meelay kaaga haraysa ma jirto shalay ada al-shabaab ku sheegay kii adiga kula joogo yaasiin fariya shabaab waay darra dila laha aniga intuu ii yimiday oo wuxuu yiri gabadhii dhaytu baa kay jirtaa gabadhii waxay jirtaa mubaarak intaba waa la weydiiyay Soomaali waa isla dhalatay salli ala nabi harakatul shabaab waa iska bariyeelan shaqana ku malihinay dhahan kuna najiis ma aha wax ka reebayo ikraan tahliil halkaasay idiin saaran tahay culimada Soomaaliyeed ee ka hadla dhibaatada taagan naf noola maqan maxaan ku dhahay dadkii gabadhii ku maqan tahay ay rabaan inay geedaha madaxa ku soo qabsadaan no wax soconaysa maaha hal xabo madaxweynaha leeyahay mudane xasan sheekh maxamuud madaxweyne shalow madaxweyne idulmiye cadaaladii oo ka jiiftay oo wax ka ogyahay arrinta iyada oo wax ka ogyahay maxamed cabdullaahi farmaajo mudane farmaajo waa madaxweynaheeni laakiin madaxweynenimo waxba iigu ma qabanin wuxuu muwaadinimadii aniga muwaadin Soomaaliyeed aan ahay meeshii aniga aan uga lahay oo muwaadinimo wuxuu iigu qaban lahay iima qabanin maxkamadii hor istaagay wuxuu ka qabtay male ninkii xil laga qaaday oo xil siiyey muxuu ii qabtay ani madaxweynenimo muxuu iigu qabtay aakhiri adduun xidintii muwaadinimo Soomaaliyeed oo aniga aan ku lahay maxamed cabdullaahi farmaajo uma cafinin ilaa yawmul qiyaama ilaahay agtiisa aa lagu xisaabtamayaa madaxweyne mudane xasan sheekh maxamuud waxaan ku leeyahay cadaalad ummadda Soomaaliyeed kaaga baahan tahay yay dhicintii dhacday gabood falkii nagu dhacay iyowna ku dhicin ummadda Soomaaliyeed oo maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xulufadiisii ay ku samaysay ummadda Soomaaliyeed salli ala nabi miyaan muwaadin ahayn yay ku dhicin mudane madaxweyne xasan sheekh maxamuud ummadda Soomaaliyeed u cadaalad fal gabar yar maanta dhoocil ah hadday dhib soo sheegato soo istaag ka hadal madaxweyne oo u cadaalad fal oo dhibkay ay tabanayso la fariiso weydii warna anaka nagu taagan maalin walba waa nalagu jiljila dhibaataana haysato madaxweyne ummadda Soomaaliyeed cadaalad ay ka rabtaa kiiskaana maxkamadda waa inaad si degdeg u furtid baaris hufan oo habaysan lagu sameeyo oo wixii hore ay ka banaanka ka yihiin oo maxaan ku dhahay kiiskan loo xil saaray ay ka banaan yihiin khubaro hatta ajaanib ku jiro waa in lagu soo daro waa in si fiican loo baaro arrintan madaxweyne xasan sheekh oo arrintan dhehil maaha naf noola iga maqan aniga naf noola iga maqan marka waxaan ka codsanayaa mudane madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan ka codsanayaa arrintan inaad si degdeg uga soo jawaabto si degdeg ina howl looga qabto oo maxkamadda sare iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo midda gobolka intaba dacwadu waa jirtaa please waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed waxay ka rabtaa cadaalad ay ka rabtaa maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu ugu sameeyay ummadda yay ku dhicin madaxweyne oo cadaaladii cunugtii yareed oo hor istaagay oo madaxweynenimo uunu u fiirinin oo madaxweynaheeda yahay oo madaxweynaheeni uu yahay oo fiirinin Soomaalinimo uu fiirinin oo islaamnimo fiirinin oo bilaadanimo fiirinin salli ala nabi
dhibaan na gaaro ummadda Soomaaliyeed oo walaalaheen oo shalay na garab taagnay na garab istaaga biliis na garab istaaga oo arrintan wax ka dhaw wax garadka Soomaaliyeed oo dunida daafaheeda joogo loo yaraa jiro waxaa jiro dad oo maxaan ku dhahayay oo wax kasta kala baaro oo dhibaatada kala bixin karaa jiro salli calee intaasaa ugu baxay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cadaaladda ha shaqayso soomaalinimada ha shaqayso